السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذا كنال كاغون داب سو دواده ايامها waxaan la soconaa ilaa inaynu galay mataqaanaa xaalad gaar ah oo caalamkii aad looga cabanayo xanuunka loo yaqaan COVID-19 wadankeena uu kamid yahay wadamada uu soo gaaray. Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga badbaadiyo. sidoo kale waxaan ognahay si mataqaanaa loo helo badbaado qof kasta waxaa laga rabaa inuu mataqaanaa u hoggaansamo tilmaamaha ay bixinayaan xirfadlayaasha caafimaadku. caalamka intiisa badan waxaa ka hirgalay inay dhahaan guryihiina jooga, stay at home. inaga weli lama odhan guryihiina jooga, laakiin qof kastooba haddaad ka maarmi karto inaad suuqa aado iyadan cidna ku odhan xaafadaada joog, adigu xaafadaada iska joog si mataqaanaa aadna aad u badbaado bulshadaadana u badbaadiso. haddaba gurigaaga joog haddii lagu yidhi waxaa lagaga baahan yahay adiguna aad fasax gashay. waxaa jira marna waxaan fasax gelin oo laga yaabaa inaad isweydiinayso waa maxay waxaan marna fasax gelin, mana geli doono. waxaan marna fasaxa gelin aan geli doono waa waqtiga. sidaa daraadeed waxaa u baahantay inaad ka faa'iidaysato. adduunka maanta waxaa la marayaa waxaa loo yaqaana inay dadku wax ku bartaan online si uu qofku xaafadiisa joogo wax barto ama distance learning. sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaano qofku inuu isagu wax isbaro oo self education la dhaho, oo adoo xaafadda joogo aad wax isbari karto. aqoontii maanta waa free, youtube-ada ka buuxdaa. qofkii kale raba inuu mataqaanaa lacag bixiyana goobaha online-ka lagu dhigto iska diiwaangelin karaa. ayaamaha waxaan isku dayi doonaa inaan ka qayb qaadano wacyigelintaas nagaga aadan bulshada, annagoo haddii ilaahayno dadka usoo dhigi doona casharo ay kaga faa'iidaystaan waqtiyada mataqaanaa usoo baxay. maanta waxaan qaadan doonaa cashar kamid ah casharadii kanaalkeena ka bixi jiray. intaan casharka bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan kanaalka subscribe, like and share intaa isugu dar. maanta waxaan qaadan doonaa sentences and its structure 1 baan raacinay. sentenceska iyo qaab dhismeedkiisa and its structure, qaab dhismeedkiisa baan qaadan doonaa haddii lahayd. sentenceku waa maxay inuu tegi doonaa waa kan. hadaba what waa maxay is a sentences. sentenceku waa maxay? sentencesku is arrangement waa habayn of words erayada that kuwaasoo make sameynaya complete sense, macno dhammaystiran. it must be waxaa waajiba meaningful inuu noqdo maxay mid meaningful, macno buuxa leh. sentencesku waa jumlo horto, waa jumlo dhammaystiran oo qofka markaad ku tiraahdo usan waxba kaa sugeyn. haddaan kugu dhaho haddii macalinku yimaado, waa erayo fara badan. haddii macalinku yimaado waa erayo fara badan soo maa, laakiin uguma yeedhayno sentences, uguma yeedhayno phrase baynu ugu yeedhayna. why sentence maxaan ugu yeedhi weyne? is not meaningful. meaningful ma aha. macalinku hadduu yimaado you are waiting something, waxbaa sugaysaa soo maa. muxuuna siinayaa, miyuuna garaacayaa, waxbaa su-aalo badan baa isweydiinaysa. marka lama odhan karo mataqaana waa sentence. markaa sentence waxaa shardiya waa erayo la isugu geeyey kuwaasoo complete sense, macnaha dhammaystiran bay leeyihin. ma fahanti? and sidoo kale it must be waa inay ahaadaan meaningful, macno buuxa waa inuu leeyahay. it must waxaa khasab at same time inuu isku xilli waxan yahay. b waa inuu noqdaa waxaan sentenceskan acceptable, mid la aqbali karo. acceptable waa in la aqbali karo. yaa aqbalaya? to the speakers of language, to the speakers hadlayaasha of the language, afka ama luuqadda. dadka luuqadda ku hadlaa waa inuu mataqaanaa acceptable, mid ay ka dhaadhacayo aqbali karaan waa inuu yahay. hadduu micnihii buuxo uu leeyahay oo dareenka dhamayska dirnaa uu leeyahay laakiin uusan ahayn mataqaanaa acceptable, uguma yeedhayno sentence. haddaan kugu dhaho anoo lascaanood kula jooga ama meel xaramkii baan kusoo tukaday, waa wax dhammaystiran laakiin it's not acceptable. sidee xaramka kusoo tukatay salaadii waaba halkan joogay, waa bahal cad soo maaha. examples tusaalayaasha aynu eegno. Mary gabadha loo yaqaano singing waxay ku heesaysaa song, hees bay ku heesaysaa. Mary gabadha loo yaqaano singing way ku heesaysaa song, hees. the room qolku is clean waa nadiif. the room qolku is clean waa nadiif. stop waa maxay? stop waa istaag. come in soo gal please fadlan.
come in soo gal please fadlan. A table miisku is made of wuxuu ka samaysan yahay wood alwaax buu ka samaysan yahay. Continue casharkii baa soo socda waan yara sharaxaynaa. Each mid kasta of these sentences sentenceada kamid ah each mid kasta of these sentences sentenceada kamid ah tells us wuxuu inoo sheegayaa something shay about ku saabsan a subject sameeyaha subject waa faacil ama sameeye which also maybe wuxuu noqon karaa person of buu noqon karaa place meel buu noqon karaa or amase thing shay buu noqon karaa tusaaleyaashan soo sheegnay markaa. And so each mid kasta of these oo kuwan ka mid ah each mid kasta of these kuwan ka mid ah makes wuxuu sameynayaa complete sense mataqaanaa macno dhammaystiran itself naftiisu complete sense macno dhammaystiran buu sameynayaa. Look at the first example tusaalaha koobaad eeg. Mary gabadha loo yaqaano sing way ku heesaysaa a song hees bay ku heesaysaa and aynu eegna hadda wayadan sii sharaxnaay. It's about wuxuu ku saabsan yahay Mary buu ku saabsan yahay tusaalahaas. Mary gabadha loo yaqaano it's a subject waa sameeye hiya halkan. It's the subject waa sameeye hiya halkan. And so it tells us waxay noo sheegaysaa something it tells us wuxuu inoo sheegayaa waa sentence-kii something shay buu inoo sheegayaa about ku saabsan iyada wax ku saabsan buu inoo sheegayaa. Muxuu inoo sheegayaa she is still singing way heesaysaa. The meaning macnahu is complete macnahu horta wuu dhammaystiran yahay complete macno dhammaystiran oo haddaan ku dhaho Mary way heesaysaa dee waa wax dhammaystiran waxba iga suumaysa. Similarly saa waxaa la mid ah other sentencesada kuwa kale 6 bay ahaayeen half waxay leeyihiin a subject sameeye ayay leeyihiin and so tell us wuxuu inoo sheegayaa something shay about ku saabsan the subject sameeya. Example tusaalaha 3 and 4 tusaalaha 3 iyo 4 also so kala waxay leeyihiin the subject bay leeyihiin though inkastoo it's not expressed inkastoo mataqaana aan la qeexin oo la caddayn though inkastoo it's not expressed inkastoo aan la caddayn oo uusan meesha ka muuqan it's only understood it's only clear understood oo la fahmaya and de haddaad u eegtid stop clear inoo qornay markaa subjectigii ama sameeyihii oo faacilka uu qarsoon yahay wakaa markaynu muujino muxuu noqonayaa you stop waa istaagaysaa you adigu come in waa soo galaysaa please fadlan. markaa badanaa waxaa la dhahaa damaa'ir baa la dhahaa waa la qariyaa inta badan marka common sentences wey waa sentenceda amarko badanaa amarka haddii sentence ku amar yahay sameeyaha ama doer of the action qofka mataqaanaa wax sameynaya inta badan lama sheego marka waa la qariyaa laakiin dee kolba inuu waa jumlo dhammaystiran istaag soo gal waa jumlo dhammaystiran. casharkan waxaa ugu laaban kartaan buugga loo yaqaano meegaha casharkiisa koobaad waad mahadsantihiin haddii aadan fadlan kanaalka subscribe soo dhan hadda saar intaynu dib u kulmi doono. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.